Xuska maalinta 16 Oktoobar maalinta cuntada adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa gaar ahaan Hotel Mansour ee isla magaalada Hargeysa. Munaasabadan ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta beeraha ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradda beeraha, deegaanka iyo sidoo kale biyaha iyo hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga wada shaqaynta dhow leeyihiin wasaaradda beeraha iyo iskaashatada beeralayda ee wax ka soo saara gudaha dalka. waxaana ugu horeyn munaasabadan hadalla ka soo jeeray qaar ka mid ah hay'adaha maxalliga iyo hay'adaha caalamiga ee wada shaqaynta dhow leeyihiin wasaaradda beeraha iyo sidoo kale qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda ee wax ka soo saara dalka gudihiisa. caalamiga kulay ma garif yarin waan isku daynaa hay'adaha dawladda wixii inaanu gacmaheedii noqono oo wixii ay qabanayso iyada ka tala qaadanaynaanu dawladda la qabano wixii ay qabanayso ballanqaadkaana waanu ku sii soconaynaa inaanu balaanka National Development Plan 2 inaanu sida uu yahay ugu dhaqano annagoo isticmaalayna deeqaha caalamiga ah ee la soo mariyo gacmaha yaga si amaana ku jirto anagoo markaa afka hay'adaha ku hadlaya kullay dhul badan baanu maraa xog badan laftayadu waanu haynaa kullay dawladda wada tashiga aanu hadda yeelano wuu fiican yahay laakiin la sii kordhiyona waan ku talin lahaa. inta ka bacdi iyaguna waxa mikrofoonka qaatay wasiirka wasaaradda biyaha iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo iyaguna ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay dhirta iyo sidoo kale dhir beeristu dalka iyo dadkaba u leedahay. maanta aynu joognaa ama xafladani ku saabsan tahay maalinta adduunka oo ku beegan 16 Oktoobar macnaha loo dhigaa wax kale ma aha xigmadda ugu weyn ee ku jirta in qofka bini'aadankii uu si sharfan u noolaado oo uu wax la soo baxo oo uu waxa ku noolaado si uu u noqdo qof qiyam iyo sharaf iyo karaamo iyo caafimaad ahaanba u noqdo humanku ama bini'aadanku wuxuu u nool yahay waxa ugu badan uu ku nool yahay waxa weeye waa cuntada. cuntadu noocyo badan bay leedahay geed kasta oo la yaraaba qayb ka mid ah ayuu u mudan yahay. haddaba beeralay waa kuwa bahji iyo toray iyo naarkuul haddaanay soo gurin oonay suuqa geynin oon la boobin hadda aan la boobin marka sidaa u soo dhigto horta beeralaydu kuwaasay ahaayeen. beeralaydu waxay ahaayeen kuwii iyagu cagafna aan loo geyn jirin lacag aan loogu dari jirin cidina la haramayn jirin cidina duduwi jirin cidiba nin walba iyo gabar walba iyadu isxilqaamaysay baa ahaayeen. maantana wasiirka beeruhu wuxuu idinla dul taagay cagaftii wuxuu idinla dul taagay siidkii wuxuu idinla dul taagay biyihii balle ha loo qodo ceel ha loo qodo kan ha la sameeyo wali ceel cid noo qoday garan maayo shan ceel baa beerta ku yaala cidiba nooma qodin. gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa soo xidhay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumin Saad kaasoo ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay maalintan leedahay iyo sidoo kale horumarada iyo habka u shaqeysa wasaaraddiisu waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. wasaaradda horumarinta beeruhu iyadoo u egmaan wax soo saarka dalka waxay looxii ay ku lahayd qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah inay kor u qaado wax soo saarka dalka. anagoo taa ka duulaynaa ka wasaaradda beer ahaan waxaanu qaadnay olole ballaaran markaan la wareegay wasaaradda taasoo ay salka ku hayso dhiirigelinta iyo ballanqaadka uu nagu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici taasoo ka turjumaysa ballanqaadkii ay ballan qaaday madaxweynuhu markii waqtigii ololaha ee ahaa in wax soo saarka kor loo qaado. runtii anagoo duulaynaa campaign badan baanu galnay waxaanu kow ka ahaa oo aad iyo aad iyadoo aan ugu mahad celinayaa idaacadda qaranka iyo dhammaan saxaafadda madaxa bannaan oo si fiican noola qabatay inaanu dadkeennii gaadhsiino inay wax la soo baxaan oo ahaa tacab badan oo aanu ku marnay gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa tuulo ilaa degmo annagoo rabnaa inaanu baraarujino dhammaan
beeraleyda dalka. isku soo duuba maaha markii ugu horeysay ee maalintani laga xuso guud ahaanba dalka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waana maalin la xuso sanadkiiba hal mar waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambal iyo Axmed Jiiti muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV magaalada Hargeysa.